munaasabad qada sharaf ah oo shirkadda Minara Homes ay ku soo bandhigayeen barnaamij loogu magac daray maalmaha dahabiga ah oo ah 120 maalmood lana siinayo bulshada Soomaaliyeed fursad qiimo dhimis ballaaran ah oo ku aadan guryaha casriga ah ee shirkaddu ay ka hirgelinayso xaafadaha kala duwan ee magaalada ee ay ka mid yihiin Parkland, Westland, South Sea, Islii iyo Sycamore ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi. Minara Homes oo caan ku ah dhismayaasha casriga ah ayaa horey u hirgelisay mashaariic fara badan waxayna hadda wadaa qorshihii ugu ballaarnaa ee deegaamaynta Soomaalida kor loogu qaadayo. bandhigga barnaamijkan ayaa waxaa ka soo qayb galay ganacsato xildhibaano ka kala socday baarlamaanada Kenya iyo Soomaaliya iyo waliba madax kale. maamulaha guud ee Minara Homes Sheikh Cabdiraqiib, madaxa iibinta iyo suuqgeynta Sheikh Liibaan Cali iyo waliba maamulaha Minara Mudane Cabdullaahi ayaa ka hadlay munaasabadda waxayna bulshada Soomaaliyeed la wadaageen fursadaha ay hayaan. waa golden days maalmaha dahabiga ama fursadda dahabiga bixinayno inaad ka faa'iideysataan. marka fursadda maanta waxa weeye inaad adinku intii maanta diyaar qiimo dhimistaas laga faa'iideysto la qaato. soo dhawaada shirkadda ku soo dhawaada shirarkana ilaa 7 wadan baa lagu qaban doonaa ayaamu dahabi haddii Ilaahay yiraahdo. gambaliga Minara guryaha qaababkay u dhisayaan meelaha ka dhisayaan iyo agabyada uu sameeynaa guryaha sida ogna walaalayaal projectyo badan wadnaa sida hadda loo sheegay soo si guriga ka dhamaaday oo hadda ay dadka degan yihiin. guryaha kale hadda socdo waxa way Parkland dabaqa lixaad ayuu maraya uu socdaa. Westland hadda wuxuu ku jiraa basementiga. Kaleesha hadda uu socdaa sidaas oo kale Sycamore way socdaan filooyinka. okay waxaan rabaa inaan ila wadaago qaabka payment balank. dad badan ay isweydiisay guriga lacagta loo bixinayaa meeqa la iska hormarinayaa lacagta see loo yareereynaya qaababka lacagaha. horta anaga waxaan bixinaa walaalayaal payment balan waxa waa si fudud hanti ku yeelo adigoo dareemin culeysna arkin ama shaqaale ahaw dawladeed ama qof ganacsi ahaw oo personal business ahaw ama ayuuto ku jirba. dumarka inta badan waxbay isku aruuriyaan. waxa helaysaa oo kambaniga Minara ku siinaya fursad 4 sano inaad lacagta ku yareerayso adigoo dareemin. 30% ayaa iska bixinaysaa lacagta kalena waxaad ku bixinaysaa muddo 4 sano. markii lagu la heshiiyo lacagta total price ugu dambeeyo ayaa waxaad ka bixinaysaa 30%. inta kalena waxa ku bixinaysaa muddo 4 sano. guriga wuxuu soconayaa muddo 2 sano adiga intuu guriga socdo lacagtaad wadaysaa. markuu guriga dhamaadana waxaad haysataa muddo 2 sano adigoo guriga degan ayaa lacagta yareynaysaa. maanta ma helaysid company ku dhahayo asagoo deen kugu leh kaale guriga furaha qaado iska deg. mid kale Minara waxay kaligeed la midooday ama gooni ula tahay inay ku caawiso. مثلا gurigi adoo degan ayaa lacagta waxa u bixinaysaa sida adoo kiro ku jiro deentana ka go'ayso. hadaad maqan tahay oo dibadda jirtid ama wadanka banaankiisa aad jirtid kambanigu wuxuu kugu caawinayaa 70% hadaa lacagta bixisid in guriga lagu kireeyo lacagta kiradana deenta lagaaga jaro. maanta fursadaas walaalayaal fiiriya kama helaysaan kambaniye kale. xildhibaan Maxamed Cadow, la taliye sare Cabdi Cali Raage iyo xildhibaano kale ayaa iyana dhankooda hadlay. shirkadda Minara muxuu ahaa waxay leedahay taariikh iyo maxaan ku yiraahdaa sumcad aad u wanaagsan. client customerskeeda ama dadka macaamiisheedana runtii waxaan oran karaa dadka aan anigu kala sheekaystay. marka waxaan oran lahaa 120 maalmood dahabiga waa fursad dahabi ah. maalin walba waa fursad dahabi ah hal laga faa'iideysto. maalin ku wanaagsan inaad guri iibsatana ma laha. maalin walba waa maalin ku wanaagsan inaad guri iibsato. waxa yar aad haysato dad deposit dad u dhigto aad yar ku bixiso. laakiin waxaan aad ii farxad gelinayo guri la yaryareenayo la iska bixinayo. Soomaaliya badana hadda shirkadaha wali ma san bilaabin
aniga dadka aad ku jecelahay property ganacsigan kale oo maqaayadaha iyo dukaamanka iyo alaabaha la keenayo kuma jiro dadka property-ga aad ugu jiraahay laakiin quruxdan iyo waxyaabahan waa iska rabnaa guri qurxan oo waasica horta bal igu daro oo magaceega qorta waa idin ku jiraahay Sahil Qarafaan Universal TV Nairobi